madaxda shirkadda dhismaha ee Minara ee fadhigeedu yahay dalkaasi Kenya ayaa waxay booqasho ku yimideen waddanka Djibouti. Mas'uuliyiintan ka socda shirkadda dhismaha ee Minara ayaa waxay kala yihiin maamulaha guud ee shirkaddaasi Sheikh Cabdiraqib iyo sidoo kale Sheikh Liibaan Cali oo ah madaxa iibinta iyo suuqgeynta. booqashada madaxda shirkaddan dhismaha ayaana waxay la xiriirtaa arrimo ganacsi iyo indhayn mashaariic ay sheegeen inay dhawaan Djibouti ka bilaabayaan. mas'uuliyiintaasi ayaa markii ay soo gaareen waddanka Djibouti ayaa TV-ga caalamiga Universal TV uga warbixiyay safarkooda. sida horeba niigu sheegay waxaan ku guda jirnay safaro badan oo adduunyada meel badan tagi doono mashruucyada wadno oo Golden Days maalmaha dahabiga maanta fursadii ugu horeysay Ilaahay wuxuuna waafajiyay inaan tagno Djibouti arrimo ganacsi iyo isdhexgal aan rabno Kenya iyo Djibouti in isdhexgalaan aan mashaariic badan ka sameeyno ee dalka Djibouti marka aragna baahida dadka walaalaha anaga walaaliya ganacsiga wadno iyo businesska waa waxtar iyo si fudud hanti ku yeelo maanta Soomaalidu waxay u baahan yihiin dadka qurba joogta iyo dadka qaran joogtaba inay helaan guryo tayo leh beec jaban si fududna qofka hanti ku yeesho anaga waxa wadnaa mashaariic oo soconaysa 4 sano payment 4 years payment oo wax ribana lahayn wax dul saara qofka 130 ayuu iska bixinayaa lacagta kale wuxuu ku bixinayaa muddo 4 sano asagoo waxba lacag la kor saaran iyo dul saaray dadka inta badan bangiye waxay ku xiran yihiin iyo meelo qaar oo riba iyo culays ka saaran laakiin anaga waxaan u fududeyn doonaa insha Allah meel kasta ee Soomaalida ay joogto inaan ka sameeyno ganacsi oo ku saabsan guryaha oo qofku hanti ku yeelanayo si fudud asagoo dareemin hadduu shaqeeyo hadduu shaqeeyo hore wuxuu ahaa halqabsigeena hadaa waxaysanba Minara Home waxay ku heystaa ganacsi iyo mashaariic fudud aad ku yeeli karto hanti si fudud adoo dareemin sida darteed insha Allah waxaan sameyn doonaa kulan weyn iyo xalfad maalinka bacdi dad badan oo ganacsatay iyo waxa naga soo qayb gali doono iyo dad badan oo maamulka oo gobolka iyo wadankaba sidaan u helno dhulal badan aan ka sameeyno mashaariic dadka Kenya joogana hadii u baahdaan Djibouti si maalgelin ugu sameeyaan dadka Djibouti jooga hadii u baahdaan Kenya si ayagana maalgelin ugu sameystaan oo meel kasta ay noqoto dad isdhexgal oo ganacsi wada sameysto sida darteed anaga Minara waxaan yahay guri raqiisa beec dhiman waxaan aad ugu mahadcelinayaa TV-ga Universal TV oo nagu soo booqday magaalada tan Djibouti horta marka hore ujeedka aanu magaaladan ugu sugannahay waxa weeye inaanu kow fursadaha anagu company-ga tan Minara uu dalka Kenya ka wado iyo gobollo badan ba horta inuu bal Djibouti indhayn baan u nimaadnay iyo baahiyada iyo mashaariicda kala duwan ee ka wadna magaalada tan Nairobi dalka Kenya in bal Djibouti-na aan indhayno laana maxaa yeelay custom badan oo reer Djibouti daafaha adduunka jooga oo custom-ka naga guriyaan ka gadnay baa jiray gobollada aanu mari doono vision-ka iyo ujeedka iyo muxuu ahaayay sida Djibouti iyo Australia iyo Canada iyo gobollada aan mari doono ayuu gobolkan ka yahay marka ujeedka aanu gobolkan u nimaadnay waa laba qaybood qaybta koowaad bal inaanu indhayno macnaha baahida ka jirta wadankan ee looga baahan yahay mashaariicda noocaas oo kala ah waa mid aanu nimaadna hadafka labaadna waa bandhiga company-ga Nairobi guryaha aad u tira badan ilaa 850 guri mashaariic gaadhaysa ayuu ka wadaa magaalada tan Nairobi iskugu jira ilaa 5 mashruuc oo waaweyn wax dhamaaday oo la degan yahay iyo wax muxuu ahaayay dhismihiisu gabagaba yahay iyo wax hadda bilow ay isugu jiro mashaariicda iyaga inaan soo bandhigno muxuu ahaayay magaalada muxuu ahaayay Djibouti-na aan indhayno baahiyaha ka jira hadafkan u nimaadnay magaalada horta kaas oo ahaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan insha Allah ta'ala iyadana sameyn doonaa shir dad ganacsato ah iyo dad madax iyo akhyaar indheergarad iyo culimo isugu jira iyaguna inaan la fadhiisan doono oo shir u qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda. Ahmed Abdikarim Mohamed, Universal TV, Djibouti.